Assalaamu calaykum waadin salaam dhamaan asxaab sharafta leh ku xiran channelkayga soo dhawaad meel baad joogtaan magacaygu waa Xasnuur insha Allah maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo faa'iidooyinka laga helo toonta. Toontu waxa ay si weyn u daweysaa qufaca iyo durayga, sidoo kale waxay faa'iido weyn u leedahay daaweynta xiiqda iyo burukiitada. Sidoo kale toontu waxay sidoo kale aad hoos u dhigtaa ilko xanuunka maadaama ay ku jiraan maadooyin la dagaalama bakteeriyada. Si iliga ku xanuunaya si dhaqso ah xanuunka ugu joojiso, burburi jawab yar oo toon ah isla markaana dul dhig iliga ku xanuunaya. Toontu waxa ay nidaamisaa shaqada caloosha si ay sare u qaaddo dheefshiidka iyo burburinta cuntada. Sidoo kale toonta waxa ay beerka ka caawisaa inuu jidhka ka sii daayo sunta, iyadoo sidoo kalena beerka ka ilaaliso inay waxyeello soo gaadho. Sidoo kale toonta waxaa ku jira maadooyin la dagaalama fayraska, kaasi oo ka caawiya inuu la dagaalamo noocyada kala duwan ee enerjiga ama xasaasiyadda. Cilmi baaris ayaa waxa ay caddeysay in toonta ay hoos u dhigto dhiigkarka. Dadka dhiigkarka qaba waxa ay maalin walba cunaan jab yar oo toon cayriin ah iyadoo caloosha maran tahay. Intaas ayaan kusoo gabagabin doonaa faa'iidooyinka laga helo toonta. Intaan muuqaalkiis kale xiga aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo.